fursaddii ugu horeysay ee xeer ilaalinta ay samaysay ee gabdhaha ay ka mid noqdeen cadaaladda khaasatan xeer ilaalinta fursado waxaan helnay aad u weyn ay haweenka dhibaatooyinka ay la seexan jireen ay ku sheegtaan. marka hore mudane wasiir ani waxaan si qaas ah ugu mahadcelinayaa horta wasiirka cadaaladda xilkaaga magaciisana maanta waa muuqataa oo cadaaladii haweenka ay tabanayeen qayb ka mid ah ma wada dhama laakiin 10% waa nasiisay aad u wanaagsantahay. gabdhaha fursado ay aad ugu haminayeen waxbarashadoodii iyo hamiga ay lahaayeen taariikh la taaban kara waaye maanta waliba aniga taariikh la taaban karay ay tahay. markaan wax yar taariikh yar aan taabto waxaan ahay taliyaha saldhigga Xamar Jab muddo 17 sano ayaan booliiska Soomaaliyeed aan ka shaqeeyaa ama 18 baan dhaho 2007 bishii saddexaad aan booliiska ku soo biiray. waxaan aad ula kulmay taariikhyo kala duwan waxaana ka soo shaqeeyay qaybo kala duwan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. gabdho badan iyo wiilal badan ayaan ahayn laakiin soo bixidda gabadha ama hanka ay leedahay inay gaarto waxaan u sheegaa gabdhahayga inay tahay inaad wadnahaagii adiga aad adkaysid dadaashid adiga aad isu sheegtid in ninka ragga meesha uu joogo aad gaari kartid. shaqada laguma kala duwano awoodda ilaahay uu noo simay qof walba oo ilaahay abuuray awoodoo ilaahay uu abuuray uu leeyahay ma aha qof in qofka kale oo meesha uu gaaray uusan gaari karin. fursadda wasiirka idin siiyey waxaan idin leeyahay idinkula dardaarmayaa inaad ka muuqataan dibac iyo maxay ahayd inaad xogaa gabdhanimo iska dhaadhicisaan oo xogaa isdiidaan ha samaynina. aqoontiinii hormuud ha idin ahaato waxaad tihiin gabdho fursad helay aqoontoodii waqti u helay maantana fursad u helay inay bahda cadaaladda ay ka mid noqdaan. way u baahan tahay bahda cadaaladda gabdho aaday ugu baahan tahay. waqti waxaa jira gabar dhan aysan bahda cadaaladda ay ka mid ahayn. fursaddii ugu horeysay ee xeer ilaalinta ay samaysay ee gabdhaha ay ka mid noqdeen cadaaladda khaasatan xeer ilaalinta fursado waxaan helnay aad u weyn ay haweenka dhibaatooyinka ay la seexan jireen ay ku sheegtaan bannaanka ay u soo baxaan. waxaa intaas ay ku sii xigsatay in gabdha saldhigyada la geeyo si cabashadii saldhigga ka soo bilaabata gabadha xeer ilaalinta joogtana ay ugu timaado ee gabdhaha xuquuqdoodii qarsooneed ay u helaan. haddii intaan oo gabar ah wasaaradda cadaaladda maanta ay noo soo bandhigtay in fursadooda ay siiyeen waxaan aaminsanahay in gabar dambe isciilkaamin doonto ama cadaalad ay ka baqaysa la seexan doonto inaysan jiri doonin insha Allah biidnillaahi alkariim. mudane wasiir waxaan kaa codsanayaa inaad gabdhahan aadan ka harin fursadaha aad siisay aad la ogaatid shaqooyinkoodii iyo sida loola macaamili doono. waxaa xaqiiqo ah in gabdhaha markii fursadaha helaan caqabado ay la kulmaan dartood ay u niyad jabaan midaasna inaysan dhicin la dhiirado. ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenuu naga dhigay diinteena waxbay noo ogoshahay laakiin micnaheeda ma ahan diinteeda nama cadaadinin banaankana nama geynin. waa shaqaysan karnaa annagoo dhoorsan oon xiriirka ilaahay ilaalinayno waajibkana saaran aan gudanayno ayaan shaqaysan karnaa. waxaan u baahanahay aniga tala ahaan horta gabdhayga aan ku dhiirigelinayaa waxaan soo maray waa ka sheekaynaa haddaan dhaho waagaa baryaayo qoraxda intay dhacday waaga sii baryaa laakiin ma rabay inaan ka sheekeeyo. waxaan idin leeyahay waa samaysan kartiin wax walboo la samaysto keliya waxay kaaga xiran tahay inaad wadnahaaga dhiirigelisid tilaabo cadaaladeedna aa qaadid. magaca la hubayaha waa magac adduunyo aakhira ilaahay dad ku weydiin doono ilaahayna adduunyo kuugu xisaabin doono aakhirana kuugu xisaabin doono. cadaalad wax aad u culus waaye wax la sheegaa lama raaco laakiin waxa sadrigaaga iyo dhaqankaaga ku jira la raacaa. waxaan la idin leeyahay waxa la idin igmaday waa wax aad u culus marka hore ma fududa. haddana waxaan isleeyahay haweenka way ka bixi karaan oo cadaaladda way u dhowdahay aminaadana way u dhowdahay. inaad waqtiga la idin geliyay iyo juhdiga la idin geliyay iyo cabashadeena tirada badnayd qayb ka mid ah wasiirka inuu maxay ahayd maanta naga aqbalay in idinkana kaalinkiinii aad qaadataan ood ka soo baxdaan idan u gaabinina inan isdhihina waa la idin cunsuriyeyna mise gabaraasaana idan dhihin oo meesha aad gaari kartaan waa gaari kartiin aad gaartaan. anigu markii ugu horeysay xidigta la isiinayay
712 nin ayaa kaliya ilayga dalacsiiyay shaqaan keensadaana leeyahay dalacsiiyay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf aan isiyo waliba xigtay ugu horeysay madaxweynihii ugu horeeyay ee dawladda hadda jirta ka soo bilaabatay ayaa isii xigtay intaasoo inoo raga dhaxdooda leeyahay waxaana leeyahay si waa shaqo aan keensaday hebna layguma siin qofna inta gacanta ii qabatay ima geyn waxaan rabaa marka gabar walba mudnaanteedii mid ay ayada ka timid mas'uuliyadeeda lagu arkay inay noqoto kuna qaadato ilaahay idinkiis mudan wasiir waxaan ku leeyahay aad iyo aadan kugu mahadcelin ani kaalinkeyga koowaad adiga waaye oo aan maanta u suuragelisay intaan oo gabdha waxbarashadooda aan la dhihin canjeero dubiya maxaa loo guursan waay aan la dhihin fursadooda u ogolaato haweenka ayagoo dhalaayo oo la guursado ay wax qaban karaan waa warshada ugu wanaagsan waay hooyo kasta waxay soo barbaarisay wiil kastoo dalka iyo dadka wax u taraayo ayadaa tarbiyeysay barbaarisay waxaa laga yaabaa wiilkaas ayadoo korinaysa inay haddana u shaqeynayso waxay ku shaqeysay ay ku korinayso marka wixii la sameyn karo inaanan qofka kale u sheegin idinkana fursadaha inaan qasaarin si aan la dhihin kuwii aa lagu qasaaro kuwa kale marabna aan naloo dhihin gabdhahayga yaryaroo quruxda badan fursadiina ka faa'iideysta aadna loo dhiirigeliyo gabdhaha mudan wasiir aad u mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu